allaha u naxariistee waxaa goordhow geeriyooday ugaas Cabdulaahi ugaas Xaashi ugaas Farcade waxauna ahaa ugaaska guud ee beelweynta Mursade. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaad geeri xanuun badan ugaaska ayaa la tilmaamay inuu ku geeriyooday magaalada Makka ee dalka Sacuudi Carabiya xilli maalmihii ugu dambeeyay oo halkaasi ku xanuunsanayay. waxauna halkaasi u tagay magaalada barakeysan ee Makka ee dalka Sacuudi Carabiya si uu u soo guto acmaasha isla markaana Allah ayaa haleelsiiyay magaalada Makka ee dalka Sacuudiya. hadda ayay geeridiisa soo baxday. allaha u naxariistay ugaas Cabdulaahi ugaas Xaashi ugaas Farcade oo ahaa ugaaska guud ee beelweynta Mursade. intii uusan bixin ugaaska ayaa Muqdisho kulamo gaar ah waxa kula yeelanayay isla markaana iskugu jiro duco iyo iscafin beelweynta Mursade. waxaana halkaasi lagu quraan saaray isla markaana Faatixada loogu akhriyay ugaaska guud ee beesha Mursade ugaas Cabdulaahi ugaas Xaashi ugaas Farcade oo markii dambe ugu dambeyn loo sagootiyay magaalada Makka ee dalka Sacuudi Carabiya. maanta ayuu geeriyooday ugaaska allaha u naxariistee waxaana ka tacsiyeeyay guud ahaan beelweynta Mursade oo aad uga naxay geerida ku timid ugaaska. inkastoo ay tahay geerida xaq isla markaana qof kasta uusan dhaafaynin daqiiqada alla uu asteeyay, balse ugaaska wuxuu ka mid ahaa muddo badan isla markaana uu ahaa ugaaska hogaamiyo beelweynta Mursade guud ahaan. wuxuuna ahaa ugaas ay aad u jeclaayeen beelweynta Mursade qeybaheeda kala duwan. allaha u naxariistay geeridan ayaa si imaanayso kadib muddo uu ku xanuunsanayay isla markaana uu ku sugnaa magaalada Makka ee dalka Sacuudi Carabiya oo halkaas maalmihii hore uu u tagay si uu u soo guto acmaasha. waxaana la tilmaamay markii uu Muqdisho ka baxayay guud ahaan beelweynta Mursade inay quraan u akhriyeen isla markaana kulamo kala duwan ay la yeesheen oo iskugu jireen quraan akhris iyo cafin. ugaaska intii uusan geeriyoon ka hor ayuu dhammaanba u duceeyay beelweynta Mursade. waxaana la tilmaamay geeridiisa in hadda ay soo baxday. allaha u naxariistay ugaas Cabdulaahi ugaas Xaashi ugaas Farcade oo ahaa ugaaskii muddada badan hogaaminayay beelweynta Mursade. guud ahaan waxaan uga tacsiyeynaynaa beelweynta Mursade iyo sidoo kale ehelkii oo ka baxay ugaaska. allaha u naxariistay qabrigana allaha u waasiciye. inkastoo ay tahay geerida xaq qofna uusan dhaafaynin maalinta alla uu asteeyay, balse waxay noqotay geeri kale oo xanuun badan isla markaana taabato quluubta guud ahaan beelweynta Mursade maadaama uu ahaa ugaaskii ugu waqtiga dheeraa ee hogaamiyo beesha Mursade.